caqabadna haysata way tahay, laakiin wax kasta oo soo kordha iskaba yimaadeen waxay ku yimaadeen sabab. Magaaladan waxaa ka dhacay dagaallo siyaasadeed oo mucaaradkii uu hub qaatay uu soo weeraray ama la dagaalamay dowladdii markaas joogtay. marka noocaasoo kale ah yani rabshado ah ay dhacaan, waa wax layska sii og yahay inay raad reebayaan. Marka raadkii rabshadahaas ay reebeen qayb ka mid ah ayaan wajahaynaa ayadiina hadda sida aan filayo qaar badan oo idinka midu inay og yihiin. Sidii hore waa la dhaamaho xooggaa la saaray maamulka gobolka Banaadir oo kaashanaya hay-adaha amniga ee heer gobol ayaa wax badan ku guuleystay, laakiin 100% ma gaarin halkii aan rabnay. Marka arrintaas iyada ah rabshadahaas raadkii ay reebeen ayay qayb ka mid tahay. qaybo kale oo burbur ah oo ay reebeenna waa jiraan iyo foolxumeyn xagga magaalada ah. xaqiiqdii arrintaas waxyaabaha dhiirigeliyay ama fursadda siiyey waxaa ka mid ah qorshaheenna amni haddii aan nahay maamulka gobolka Banaadir iyo haddii aan nahay dowladda federaalka ah. Dareenka ugu weyn waxaa la isugu geeyey kooxaha nabadiidka iyo al-shabaab. Noomaba qorshaysnayn in rabshado hubaysan oo tignika iyo madaafiic la isu adeegsanayo magaalada inay ka dhacayaan. Isla markaas yani gaangis ama mataqaanaa yani burcad hubaysan ee dadka dhacays wax mar hore laga bogsaday oo magaaladan ka caafimaad qabtay ahayd. Marka looma jihaysnaynba, kaliya waxaa diiradda la saarayay sidii kooxaha argagixisada ah loola dagaalami lahaa oo loo baacsan lahaa. Marka arrimahaana yimid oo caqabad aan loo dhigan ah. Isla markaas tii siyaasadana waa la xaliyey, waa tii dalkii doorasho ka dhacdo hadda meel wanaagsan ay soo gaartay. tii kalena hay'adaha amniga iyo maamulka gobolku meel fiican ay soo gaarsiiyeen. wax dhaman waa dhammaystireen.